sheekadu waxa ay ku bilaabmaysaa tuulada Halloween oo ku jirta waqti adag ama xilli sixir badan bilowgii qarnigii 19aad sanad kasta dadka tuuladu waxa ay banaanka isugu soo bixi jireen habeenka ugu dambeeya ee bisha Oktoobar si ay ugu tuuraan waxyaabaha xunxun dabka dhexdiisa taasina waxa ahayd dhaqankooda hadda waxa ay soo kaxeeyeen hooyo iyo ilmaheeda waxaana lagu eedeeyay inuu ilmuhu qabo cillad jireed sida darteed loo baahan yahay in lagu tuuro dabka inkasta oo ilmuhu yahay midaan dambi lahayn haddana waxa lagu tuurayaa dabka hooyaduna waa ay ooyeysaa waxa ayna dalbanaysaa in ilmaheeda loo daayo maadaama ilmahan oo kaliya ay haysato balse dhag jalaq looma siinayo oo waxa ilmaha lagu tuurayaa dabka maadaama ay naagta saaxirada tuulada ay amartay in la dilo ilmaha yar intaa kadib naagtii saaxirada ahayd waxa ay isaga cararaysaa meesha waxaana isla markiiba dabka ka soo baxaya ilmihii yaraa oo noqday jinni aad u weyn waxa uuna bilaabayaa inuu ugaarsado dadkii mas'uulka ka ahaa in dabka lagu rido isagoo ka bilaabaya naagtii saaxirada ahayd intaa kadib maalmuhu way dhammaanayaan sanaduhuna way soconayaan hadda waxaa la soo gaaray qarnigii 20aad waxaa halkaa ku arkaynaa Nile iyo gabadhiisa Nikki iyo waliba xaaskiisa Katie iyo wiilkeeda Nathan oo u soo safraya tuulada argagax leh ee Halloween si halkaas ay ugu soo qaataan waqti waxa ay maalmo badan u soo soconayaan tuulada sidoo kale Nikki waxa ay casuuntay saaxiibadeed Kemi iyagoo qorshahoodu yahay inay ganacsi ka furtaan tuuladan balse ma oga cawaaqibta ka dhalan karta inay yimaadaan tuuladan marka ay yimaadaan tuulada waxa ay ku hakanayaan makhaayad halkaas oo Nikki iyo Kemi ay bilaabayaan inay ku qoslaan hadal uu iska yiri markiilaha makhaayada oo lagu magacaabo Pierre Nile waxa uu ka codsanayaa Milgren inuu u tilmaamo guriga uu kireystay ee ku yaala wadada lagu magacaabo Willow waa uu u tilmaamayaa waxa halkaa ku dhexmaraya sheeko ku saabsan arrimaha familkooda intaa kadib waxa makhaayada ka soo galaya nin duq ah oo lagu magacaabo Charlie waxa uu u sheegayaa soo booqashada ay soo booqdeen tuuladan inay tahay mid khatar ah loona baahan yahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan isaga laabtaan maadaama ay tuuladani aad u khatar badan tahay waxa uu uga digayaa waxyaabo khatar ah oo ka dhaca tuuladan maalin kasta balse cidna ma dhageysanayso markan Charlie waxa uu bilaabay inuu si carale ugu celceliyo digniinihiisa balse waxa banaanka ku riixaya Milgren marka ay soo aadaan gurigooda Nikki waxay ku maadaysanaysaa hadaladii ninkii duqa ahaa waxa ayna u aragtaa in sheekadiisu ay ahayd khiyaali oo kaliya balse waxa hal mar soo muuqanaya mar kale ninkii duqa ahaa isagoo waliba uga digaya imaashaha tuuladan balse wali waxay sii wataan inay ku maadaystaan waxa ay soo aadayaan gurigoodii marka ay guriga yimaadaanna gabdhuhu waxa ay dareemayaan inuu qolku ahayn qol fiican maadaama nalalka qolka iyo mukoofiyadu ay shaqeyneen Nile waxa uu ku qancinayaa in wax waliba ay fudud yihiin oo si fudud loo hagaajin karo Nikki iyo Kemi waxa ay bilaabayaan inay waqti fiican ku wada qaataan qolka daqiiqada kadib waxa imaanaya Owen saaxiibkii hore ee Nile taasoo keentay dood adag oo dhex martay Nile iyo Nikki maadaama ay Nikki ka dambeysay imaanshaha Owen Nile ma doonayo inay wada shaqeeyaan Owen maalintii xigtay gabdhuhu waxa ay la kulmayaan dad deegaanka ah oo aaminsan khuraafadiyo iyo in la shido dab sidii caadadu ahayd qarni ka hor waxa aynu ogaanayaa sheeko ku saabsan hooyadii Nathan ee ka ooyeysay wiilkeedii yaraa ee laga gubay qarni ka hor inta lagu jiro habeenkaas irig iyo qoyskiisu waxa ay la kulmayaan shil yar oo ay sababtay marayar oo ka soo baxday meeshii qarni ka hor dabka laga shiday irig waxa uu ka degayaa gaariga si uu soo fiiriyo waxa gaariga ku dhacay balse waxa dib u jiidanaya marada yaray xaaska irig waxa ay u muuqataa mid walwalsan waxa ay isku dayaysaa inay banaanka u baxdo balse waxa soo muuqanaya wax jaakad madow qaba oo aan wajigiisa la arkin dhanka kale Nikki waxa si qarsoodi ah u soo weeraraya qof wata mindi balse nasiib wanaag waxa ay ka soo kacaysaa hurdada waliba iyadoo argagaxsan balse qofkaasi waxa uu ahaa Kemi oo brank ku sameeynayay hadda waa uu bariyaa qof walibana waxa uu u muuqdaa mid faraxsan waxa ayna si farxad ah ku cunayaan quraacdooda intaa kadib Nikki iyo Kemi waxa ay soo qaadanayaan baaskiilkooda si ay u soo sameeyaan jimicsi yar waxaana wadada taagan booliis baaris ku haysa wixii ku dhacay irig iyo qoyskiisa madaxa booliiska oo lagu magacaabo Perry waxa uu si qoto dheer u baarayaa kiiska balse waa uu yaabayaa kadib markii uu waayay wax cadeen ah hadda waxa uu bilaabay wax kasta oo ninkii duq ahaa uu sheegayay dhanka kale Nikki iyo Kemi waxa ay imaanayaan meel lagu gado biisaha balse nasiib xumo waxa ay imaanayaan meesha oo xiran xoogaa kadib meesha waxa ka soo baxaya laba haween oo duq ah waxa ayna u sheegayaan inay Brito soo laabtaan haddii ay doonayaan biiso Nikki waa ay baryaysaa waxa ayna u sheegaysaa inaysan awoodin imaanshaha Brito balse waa ay ka diidayaan waxa ayna ka xiranayaan albaabka iyagoo halkaa ku yaaban waxa gadaashooda ka soo muuqanaya laba dhalinyaro oo wada tagaari midkood waxa lagu magacaabaa Kyle labada gabdhood waa ay ka helayaan halka midka kale lagu magacaabo Matt labada dhalinyaro waxa ay iga sheekeynayaan xaaladda tuuladan ee aadka u qasan Katie
Kitty waxa ay gurigeeda ku arkaysaa ninkii duqa ahaa waa uuna ka tagayaa waliba iyadoo u dhawaaqaysa halka Nail uu xanaaqsan yahay maadaama gabadhiisa ay soo daaday waxa bilaami lahaa kulankiisa sidaa darteed ninkii loo baahnaa inay soo dhaqsato si ay u daryeesho wiilkooda yar waxa uu sheegayaa inuusan rabin wiilasha ay saaxiibada yihiin inay guriga sii joogaan loona baahan yahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan isaga tagaan halkan marka Nail iyo xaaskiisa Kitty ay aadaan kulankooda gabdhuhu waxa ay maqlayaan codad cajiib ah iyo kuwa cabsi leh taasoo keentay inay si tartiib ah ugu dhawaadaan albaabka waxa ay furayaan albaabka balse waxa ay ka naxayaan Matt oo iska dhigay reer akhraad waa ay argagaxayaan iyagoo waliba ku qaraacayo ul yar waxa sidoo kale u imaanaya Kyle iyo gabar lagu magacaabo Jenny waxa ay doonayaan inay israacaan balse Nick iyo Kemi ma bixi karaan maadaama looga tagay wiilkooda yar Kemi waxa ay xiisanaysaa inay raacdo Matt waxa ay soo jeedinaysaa inay ilmaha yari uga tagaan guriga si ay u raacaan Matt iyagoo uga tagaya aalada kormeerka ilmaha si ay ugu ilaaliyaan ilmaha balse Nick waa ay ka diidaysaa fikradaas aadka u xun balse ugu dambeyn waxa ay ogolaanaysaa inay soo boqdaan gabar ay xisaaxiiba yihiin dhanka kale Nail iyo Kitty waxa ay la kulmayaan Owen waxa uu ugu waramayaa habaarka iyo dhibaatooyinka tuuladan Howland halka Jenny ay saaxiibadeeda cusub uga sheekeynayso sheekada ku saabsan halyeega shaydaanka ah ee qarni ka hor dabka lagu riday bilowga sheekada qof waliba waa uu qoslayaa laakiin markii la gaaro qaybta ku saabsan ilmihii la gubay jawigu waxa uu isku bedelayaa cabsi aad u daran sida ay aaminsan yihiin dadka deegaanka ma jiro ilmo ammaan ah habeenkaas ilaa uu waagu ka bariyo bishani waa November waa habeen aad u khatar badan inta kadib Nick waxa loo soo dirayaa fariin in ilmihii yaraa uu ku sugan yahay khatar waxayna dib ugu soo laabanaysaa guriga si ay u fiiriso ilmihii yaraa balse nasiib wanaag hadda ilmuhu waa uu fiican yahay Matt iyo Kemi waxa ay halkaas ku qaadanayaan jawi aad u yar inta kadib Kemi iyo Matt waa ay soo baxayaan si labadooda ay u soo qaataan jawi kelinimo ah halka Nick looga tagay guriga kaligeed marka cashada la gaaro Nail waa uu yaabayaa kadib markii uu arko Mile Green oo ah taliyaha tuulada Nail lama socon inuu Mile Green qayb ka yahay golaha magaalada Mile Green waxa uu sheegayaa in habar kasta oo ay arkaan ay ka mid tahay halyeeyada tuuladan Kemi iyo Matt waxa ay raadinayaan qoryo si ay u sameystaan dib aad u weyn si kastaba ha ahaatee waxa ay u muuqataa inay si qarsoodi ah isku doondoonayaan balse dhowr daqiiqo kadib waxa ay maqlayaan cod cabsi leh waxa sidoo kale u soo uraya ur aad u qarmuun waxa ka muuqda argagax balse Matt waxa uu maleynayaa Kyle oo ku kaftamaya waxa uu dhaqaaqayaa shaygaas madow ee argagaxa badan balse waxa uu dib ka ogaanayaa inay arintani ahayn mid khiyaali ah kadib markii uu bahalkii soo weeraro Kemi waxa ay u cararaysaa dhanka keenta halka Jenny iyana ay soo aadayso dhanka keenta Kemi waxa ay ku dhexlumaysaa keenta iyadoo ka cararaysa jinkii argagax lahaa fadlan intaan dad nala soo gaadhin nagu soo biir oo subscribe noo saar channelkeena lana soco qaybaha dambe ee muuqaalka